golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo caawa isugu yimid kulan degdeg ah ayaa ku meel mariyay ku talagalka miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2023 oo ka kooban dakhliga gudaha iyo deeq taasi oo gaaraysa 967.7 milyan oo dollarka Mareykanka ah. shirka golaha wasiirada uu gudoominayay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa wasaaradda maaliyadda waxa ay hor keentay ku talagalka miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2023 miisaaniyadda ayaa xoogga lagu saaray sare u qaadida dakhliga gudaha oo hadda la rajaynayo inuu ka sare maro kii sanadkii la soo dhaafay iyadoo la rajaynayo inuu gaaro 283.3 milyan oo dollarka Mareykanka. wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa golaha uga mahad celiyay meelmarinta ku talagalka miisaaniyadda dawladda. shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa intuu socday caawa waxay wasaaradda gaashaandhigga hor keentay laba heshiis safgarad oo ay la gashay dalalka Uganda iyo Suudaan kuwaas oo dhammaantood quseeya iskaashiga difaaca. heshiisyadan ay golaha wasiiradu meel mariyeen ayaa muhiim u ah Soomaaliya maadaama ay ku jirto dagaal ay dalka uga xoreynayso kooxda khawaarijta ee burcadiimeedka ah kaasi oo ay dawladdu guulo badan ka keentay howlgallada socda. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.